waxaa jira 8 lahjadood oo kala saari karnaa midda koowaad waxay tahay maxaa tirida waqooyi maxaa tirida laba aan u kala saarayna maxaa tirida waqooyi waa wixii hiiraan iyo ka shisheeya marka waqooyian isla niri ma aha waqooyi Somaliland kaliya ma aha Puntland ku jirta muduga ku jirta hiiraan qaar ka mid ah waxa ku jira Soomaalida maartay shikilinka shanaad iyo wixii kale oo maartay la halmaala iyo maxaa tirida koonfureed oo ah xaytiri marka aad leedahay maxaa sheegi maartay waa kuwa koonfureed banaadiriga ha ahaada iyo kuwii kale maartay Soomaalida kale ah waa laba lahjadood way isu dhow yihiin laakiin maxaa tirida laba ay u kala baxdaa taasana noqotay tii qoraalka tan ma aha maartay ma noqonin laba Soomaa tan saddexaad waxay tahay maay oo hadda aan ka soo hadalnay oo deegaano badan looga hadlo oo waa lahjada labaad oo dadku ku hadlo u tir badan waxaa jira marka 4 lahjadood oo qabaa'il u gaar ah ayaa jira marka qabaa'ilkaas ay magacoodii ayaa lahjadihiina lagu magacaabay maxay tahay garre lahjada garre ayaa la yiraahdaa ayagale ay maartay ay ku hadlaan laakiin maay marka aad leedahay qabaa'il badan oo maartay miriflaha u kala baxa ay ku hadlaan maxaa tirida koonfureed qabaa'il badan ku hadla hawiye iyo reer xamar iyo waxa ha ahaadeen laakiin marka garre aad leedahay ciidan garre aan kuma hadlaan marka lahjada garre lahjada tunni wa tunniya ku hadla lahjada jiidu lahjada dabarre lahjadahan marka way ka duwan yihiin lahjadaha kale aaday uga duwan yihiin maxaa dhaxgeliyay waa jiido lama fahmaayo maxaa dhaxgeliyay waxa dhaxgeliyay waxa waaye markii xeerkii aan lagu kala saaray halbeeg oo ahaa arrimihii aan soo sheegnay ay galayaan walow العلسكي هوس وآذايا لكن كنتن كما هوس مرحي كنتن كما استدرادت لغما ساري كرا هل كماي او سيدتن إيميلها سوء وقارايب ما قالت اكوان واكهو سيا مركا سيدا درادت لهجدهانا ويكمديهن وحن اللوبي أنا كدرين مركا لهجدها سيدادا نريموكتا تضوان شاقي waxaa jira lahjad la yiraahdo lahjadii ashraaf la hijri laakiin ashraaf kaliya kuma hadashe waxa loo hadlaa marka qabaa'il badan ku hadla shangaanina waa looga hadli jiray hadda waa looga hadlaa ma dhati ayaa ma artay sida maxaa tiri ma dhati marka iyagana waxay leeyihiin wax oo u gaar ishoon kishoon haday ku yiraahdaan yaani waxay lagu jeedaa keligeen laba 4 indhood oo kale yani wax u eg waa ishoon kishoon waxay leeyihiin waxyaabaha qaarkood oo codkooda aan bedelin oo iyagan wax keedii way ka mid yihiin biyaha waxay yiraahdaan bil inta ka horna waxaa dhacday nin oo maartay xamar ka tagay oo mar ka tagay oo biyo waagi hore biyo la dhaamin jiray oo dameeraha la saaraa oo asaasa loo dhaamin jiray tinaga la saaraa biyo marka haweeney ayaa maartay intay dirishada saawi soo qoorasata bisha meego marka asaga bishi wuxuu u maleynaa bishi waxa uu leeyahay jamcka 8 sabti 9 maanta 12 waaya atagaa meesha hadana waxa la bisha meeqo sabti tii loo wada asag markaas uu kuwan bilay rabaan ma biyo ma rabaan iga wado ma garatay marka bisha ay leeyihiin kuwan waxay keydinayaan sidoodii hadana ereyada qaar kood sidooda ay u keydiyaan maxaa la yiraahdaa bisha waxay dhaan bilta ilan bilta asalka waay la iyo ta hadday isu tagaan labadan shibanayaal shacbay noqdaan Soomaaliga ul aad leedahay qodob ku dara ta waay ul ta waay mogtahay
la'dii iyo ta'dii hadday isku dhigaan ushaad leedahay marka dadaa waxay yidhaahdaan shac qodob waayo shac hadduu qodob yahay shac ka saara u leeb kuu soo haraysa aawe asalkii maaragtay ma aha qodob iyo wax isku dhiga waay usha marka ayaga waxay leeyihiin bilta wax u eg maaragtay sidii awal ay ahayd ereyga sidii awal uu ahaa ay weli ugu dhawaaqaan waa waxyaabaha keenaya kala duwanaanta tusaale ahaan usoo qaadanayna